1986 Argentina waxa ay u ahayd sanad guusoora sanad ay sidii ugu sareysay ugu sagootiyeen wiilkii marle aragga ahaa ee darogada dariska la noqday waa Maradona kaasoo xirfadiisa kubadda cagta kaga yaabsaday caalamka isaga waxa uu yaqaanaan taageerayaashiisu magaca mucjisada dadkiisuna waxa uu yahay kan loogu jecel yahay dalkiisa Maradona waxa uu ku kasbaday magaca sidii nafurka lahayd ee qarankiisa uu ugu hadiyay koobkii ugu qaalisanaa sanad kadib taariikhda cajiibka ee Maradona Argentina waxa ay soo dhaweysay dhalashada wiilka dahabiga ah ee Andres Lionel Messi libaaxa ku laafiyooda kubadda wiilka naynastiisu la boolga atomika tahay waxa uu caawa caalamka tusay sida uu yahay kan ugu weyn ama goodka waxa uu banaanka iska dhigay tuhun kasta oo laga qabay tayadiisa Messi waa Messi ayay ahay natiijada ka soo baxday kulankii kama dambaysta ahaa ee koobka adduunka kaas oo ciyaar dhaaftay ballan kula lahaa xulka difaacanaya koobka ee France bilowgii waxa dardar ku soo galay ciyaarta kooxda ka timid Buenos Aires iyo cariga Argentina kooxdii uu weerarka mas'uulka uga ahaa hogaamiye Messi waxay si xirfad sare leh kubadda uga dhaqaajisay xagga goolka uu wardiyaha ka ahaa Lores daqiiqadii 23aad markii ay mareysay ciyaartu waxa uu Messi dhaliyay goolkiisii koobaad ee ciyaarta waxa uu gool kulaad la hubay in uu dhalinayo dhex dhigay shabaqa France intaasi wixii ka dambeeyay waxa dhacay waxay ahaayeen wax u baahan in buugaag lagu qoro farsamada kubadeed ee ka imaanaysa 11 ciyaartoy ee Argentina waxay ahayd ashqaraar kubad uu sida u baasay Messi filimka Titanic oo kale laga sameyn doono sheekooyin ayaa waxa ka yimid goolkii labaad ee Argentina halkaas marka la marayo waxa burburay khadkii difaac ee kooxda France weerarka Argentina waxa uu ahaa mid sida biyaha daadka u qulqulaya jahwareerkii ka dhashayna waxaba lagu qiyaasay in xilli horeba ciyaartu dhamaatay badina waxa dareeray taageerayaasha Faransiiska qaybtii labaad ee ciyaarta Paris waxay isticmaashay hubkeeda kaydka madow waxa uu kooxda hormuudka u yahay wiilka faraha laga qaadka noqday Mbappe kaasoo 3 daqiiqo ku dhashay 2 gool sidaasna ku noqday kan ugu goolasha badan koobka adduunka ee hadda soo idlaaday daqiiqadii 83aad markii la marayay waxay ciyaartu noqotay bilow iyo waa cusub waxa sida quraarada u jajabtay rajadii koobka ee Messi iyo Argentina daqiiqadii 87aad markay ahayd waxa goolka ku dhawaaday Faransiiska Mbappe ayaana u muuqday mid aan waxba laga qaban karin waxa uu isticmaalay hubka aan wali jiilkiisu maqlin ee nukleerka waxuna Faransa ugu jiray halkii sidaani joogay 1998 sagaashankii daqiiqo waxay dhamaatay iyadoo natiijadu tahay 2-2 kubad uu deemanka madow ee Mbappe maamushay Dishamna waxa uu muujiyay khibradiisa marka loo eego Scaloni oo wiilkiisii dhaqaaqa badnaa ee Di Maria banaanka geeyay balse waa kubada sida ay tahay lagu masal gooye 30 daqiiqo ee lagu daray ayaa 15kii hore ay ku dhamaatay isla natiijadii hore 2-2 barbardhac waxa wali la sugayay labada wiil ee magacoodu emta ka bilowdo waa Mbappe iyo Messi kii waqtigu saacidi doono dhamaadka ciyaarta waxa timid daqiiqadii 109aad daqiiqadii shaki baxa daqiiqadii nasiibka Messi ayaana dhaliyay gool dhaafay goolkiisii 7aad haddii ciyaartu ay sidan ku dhamaan lahayd waxa uu noqon lahaa goolkani kii ugu xiisaha badnaa boqolaalka gool ee uu farqay waayihiisa ciyaareed balse ciyaar waa gelin dambe ayaa u qarsooneyd Mbappe oo u jawaabay Messi waxa uu dhaliyay goolkiisii 3aad ee ciyaarta iyo kiisii 8aad ee guud ahaan tartankan qadar ay martigelisay wiilkan madow waxa uu sameeyay taariikh waana ninkii ugu horeeyay ee hal finaal ama ciyaar kama dambaysa 3 lay dhaliya 2 saac iyo sunuud lagu daray ciyaarta waxa la isla aaday gool kulaad ama rigoolayaal kubadihii la turtayna waxa khasaare badnaa France waxa soo dhamaatay haysashadii Yurub ee koobka adduunka goolhaye Martinez waxa uu noqday haliyay u soo baxay Argentina sidaana koobka ayaa farta uu uga saaray Messi waxa loo boqoray taajka kubadda cagta koobkii adduunka ee qadar ay martigelisay 2022 waa uu idlaaday